jenaraal maxamed nuur galaal mar kale kusoo dhawaaw xalqadii hore waxaad nooga sheekaysay dagaalkii 64 iyo sidii wax u dhaceen waxaa kaloo nooga sheekaysay diyaarintii jabhadihii xornimo-doonka ee Soomaali galbeed iyo Soomaali abow iyo sidii Itoobiya ay u galeen oo dagaalka uga qayb qaateen halkaas ay ku ekeed xalqadii hore oo adigana madaxweynihii markaas jiray Maxamed Siyaad Barre oo mas'uul kaaga dhigay howlgelinta iyo tababarada jabhadaha markaad ka dalabtay ciidankii inay hawl galaan oo dagaalkii ay galaan maxaa dhacay waxaa dhacay u horeeyay horta news ahaa intii aan jabhadaha iyo intaas ku mashquulsanayn ayaa ruushkii iyo xabashida is afgarteen xeer salaasa meeshii ka baxay ninkii Mengistu ahaa wax alla wixii Itoobiya madaxda ka jiro oo dhan ayuu laayay wax yar ciyaal yar asaga soo haray fiilashiinayso markii hore noqday xisbigii shuuciga shiinaha ayuu la xirtay ruushka lama xiran xurgufna waa ka dhex taagneed labadooda ay markaas ruushka si carooday arkaas oo maray Mengistu waa markuu xabaar xagga ku mashquulay Shiiniiskii ayuu wuxuu arkay inayan isku miisaami karin ruushka iyo Shiiniisku kala culus yihiin inayan markaas Shiiniisku heerkii u taagnaa inayan u dhigbi karin ruushka ayuu gar markaasna sanadkee la joogaa sanadkee la joogaa markaas waxa waaye 76 la joogaa 76 waaye bilowgeedii way ruushka waa isbedelay Mengistu markuu arkay inaan Shiiniisku ayaan wax weyn qaban karin ayay dhinaca kale isu rogay fag buu intay yiri oo dawladda aatay ayuu Brezhnev hoosta ka galay lagu qabsaday nimankan wax alla waxaad rabtid weydiiso nimankan iga celi nimankan Soomaalida horarka igu soo inuu isaguna soo diray ma oga bas ninkii nimankii waa okay baa la yiri markaas waxay nagu bilaabeen anaga hadal nagu bilaabeen juuq ruushkii baa idinku bilaabay maxaa ka mid ahaa asagu toos noolaan markii hore wuxuu soo adeegsaday Kuban iyo Bulgaria xisbiga shuuciga Bulgaria xisbiga kuwa afartameeya waxa la keenay waxaas iruuraca oo Bulgaarka xisbiga inta wadaaga ee Soomaaliya ay dhex galeen alla yiri ka dhaadhiciya in la joojiyo dagaalka lagu hayo kacaanka Itoobiya colaadda Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba kacaan ka curtay anaga Kubankii aan la soo adeegsaday Kuban awal nala joogay garanaysa oo intii horeba aan saaxiib ahayn ayaga la soo adeegsaday oo soo taabtay ayaga soo lagu bilaabay annaguna waxaan aragnay waxaan ruushka wata annaga hawshayada ruushka wata adinka xuma ogeydeen oo ku jikaarayna ma ogtahay marka asagina ma hadlayo kuwan xunka markii arrintii halkaas kuwii la soo diray ay ku jirdabeeshay ayuu toos hadal nagu bilaabay ruushkii wadilay joojiye nimankii isbeertayaalka ahaa iyo generaal waxaa jooga markaas xagga siyaasadda ka socda oo ruusha jooga iyo kuwii awal militariga u joogay xasan generaalkii waa maaragtay lecture saan waaye hanta wadaaga maaragtay in la xurmeeyo kacaamada in la xurmeeyo saan waaye meeshaas kacaan baa ka qortay maaragtay raashiyada hanuuni soo idin galay hanuuni noo galay soo noqon marka Maxamed Siyaad waad u timid jabhadii hawshoodii markaa dhamaysay ayadoo wada xaajoodada ruushka iyo waxaasna ay jiraan iyo kacaanku hays raaco Itoobiya kacaanka curtay iyo kacaanka Soomaaliya ayadoo tii taagan tahay maxaa is dhahdeen markaas aniga iyo generaal Maxamed Siyaad
wuxuu yiri waxaa markaad tiri jabhadihii hawshoodii waan diyaar waay hala galo yiri amar u baxshay hala galo ciidamadii hala diyaariyo ciidamada Samatar ciidamada hala diyaariyo wuu fadhiyay markii hadalka aan isleeyahay ciidamada diyaariyo hadda diyaar wiik ka bacdi ciidamada hawsha galeen ayuu amar ku baxay bas ka laakiin hala diyaar balaan baa la rabaa balaankii qorshe ma jira miyaa markaas hala diyaariyo iska socdo oo iska dhaha ninkaan adaguna allihii alla ahaa howlaha uuma si fiican ugu dhuun daloolay cali Samatar cali Samatar ilaa xad waa dhisnaa waa dhisnaa laakiin doqon oo ama shaqaystaa oo caajis low ayuu ahaa inuu aan sheekeeyo kaliya ku fiicnaa laakiin aqoon waa lahaa aqoon ku filan ilaa xad waa lahaa سيد يشان مرك محل عليه مدحويني هذا أمر بحشة عيدنكي مرك كي أمر كل سوسي حرمتي وصانع هذه مركز وحاطة هاي وزير كحجان كقاشان دق هلا قاعد دق واه مركز جبهته أتصور ما يسي وزير كحجان قاشان دق هلا قاعد دق دقال كينا أمر البحشة على سمترنا ووزير كي قاشان دق محاسة ما يسان مركز وحل المركز إن حرمتي أي شقيصو abbaanduulku inuu shaqeeyaa la oo qorshihii diyaariyo wax diyaarsanna male waxa ka daran meel xafiis walba isbeerta ruushaha fadhiya khubradii ruushka nin dhaqaaq kara waa nin walba fiirinaya saan u fiirinaya iyaga la socda dhaqaaqiis warsee la yeela waxa la yiri waa in la helaa hal nin وكلي شغاية يا ده أساس ماشي كده على تعفوين يو بحال كان مصطفى يو هل نوع اللي هلا ودمال إلا أنت اللي جيو سو قرشها سماية مركب وحال استوسية باهذا الله قبل قرشة دجال يعدي دجله أي سأنصرتنا أبحن سو أنت إيه يروح الجناح قلال حتى meeshaan wax ku dhaama ma hayne maaragtay habarteeda ka taareer ma yeelayo qorshii samay ku yiri على Samatar ma yeelayo markii waa dhib meeran kii u tagay madaxweynihii uu diiday yiri nin kalena ma hayno maxaad ku diiday markaas waxa ku diiday horta asaga waa ku xumeynay inta kale aad iyo aad complicated u tahay waa arrin adag oo dhib badan adigoo maaragtay ekasta diyaarsan tahay maaragtay ciidanka cirka iyo ciidankii badda iyo ciidanka difaaca cirka iyo ciidankii dhulka waxa soo dhan iyo logisticadooda iyo waa arrin culus aad iyo aad oo la rabay hogaamada inay ka shaqeeyaan hogaan walba xiisa soo diyaariyo ganacsiga ciidanka cirka wuxuu soo diyaariyay in la yiraahdo hal qof soo diyaari hal qof la yiraahdo waa urgent shaqo waa aad iyo culus arrin culus anyway hay maxaad dhacay waa yeeray xamsiyaada ku yeeray war hadda miyaa isku soo jeesino weeray wixii aan wadno dhan ciidamada adaa og bahari kuwaanuna xoolama og waa kana ما أغنى عليه يجون مسؤولية أولية حولا ما أغنى عليه أبا وص كفوا ور إلا نهار الله محمد لا يعرف محال عي مركه وكوياري وياري إلا سماي ويري وياه مال حمر دين عاص ماركتي warshaddan baastada maaragtay hore meel oo galbeedkeedaas ana sidii aan garanayn meel ay tahay ayaa la dhigay xafiis laga sameeyay waad aqbashay markaad aqbashay inaad sameeysid qorshihii ayaa lagu diyaariyay xarun dad kula shaqeeyay lagu diyaariyay ma kaliga ayaa xafiis meel laga siiyay waa sheegay barkay inay baxdaa la diiday waxaan qarsoomaynaa qarinaynaa نحن وحبك كقري كريم أيام وحبك قري روشكي هاي كلام الليل وي
ماشي اللي جاي ماشي اللي جاي مقدشة جيس كده صدح بلاد يعني ماشي اسكو جير كاليغا اللي جاينا maxaad samaysaa 3 bilood ma babkii iyo ciidamadii iyo amarkii ciidanka la kala siilaha iyo mid walba meeshaadu aadi lahaa iyo waa xulusta qorshiga dejinay dad ma u baahatay in aad heshid adigu waxa u yeertay kuwa cirka iyo kuwa badda iyo waa u yeeray hay amar la siinaa waa loo yeerayaa taliyaalka marka waxbaad weydiisanaysaa waxaas ii keenad leedahay hay marka waa qiino waxa qiinay maartay ciidanka badda waa ogahay maraakiibta ay hayaan waa aqaanaa meeqa markab ay hayeen badda markaas waxay hayeen 4 gantaala xambaaryaal oo maraakiiba iyo 4 torbeedo bahal siluurayaalka tuura siluurayada bahalka sawarida hoos marta waa gujiska kuwa la dhaho gujiska sawaridaas gujiska ma aha submarine ma aha waa bahal ma arkin oo baabuur maraakiibta waaweyn ay marka kale ku ridaan miyaadan arago badda marto oo ah siluura la yiraahdo okay marka 4 iyo 4 8daas haysataa 8daas oo madaafiic wada ay midoo gantaalo tuuraya ilaa 50 kilomitir gaaraya midna siluurooyinka ay ridayaan oo marka aragtad ku siluurolo badda biyo dhexdeeda maraya ilaa ay ka qac ku tiraado ka markabka cadawga marka 8 markab oo madaafiic wata ayaad haysataan waa badda Ethiopiana badda markaas Eritrea haysataa baday leedahay baday leedahay adiga kuwii gantaal xambaarada waxa ay saacadaas berbera ka baxaysa ay kuwa gantaal xambaarada berberay degan yihiin saldhigooda waa berbera hay kuwa waxa la dhihi jiray Qatar-yaalka oo oo saluurooyinka tuuraya na waxay deganayeen Kismaayo marka kuwa gantaal xambaarada baan adibka saacadaas berbera ka baxaysan casirkii markay duhurka markay tahay ciidamada cirka Ethiopiankana waxaan rabnaa inay arag adink heegana geliseen qorshiya u soo noqon doonaa taas marka intaas ciidanku baddu yahay cirkana maxaad haysataan cirka waa badnaan dawlado badan ayaa jira intii gaarayeen qiyaastii xasuusatiin dhowr iyo 20 ay ahaayeen diyaaradihii miiga oo isugu jira 17 iyo 21 miig 21 iyo 17 marka taangiyadana meeqaad haystaan markaas adiga taangiyada cusub aan wadanay waa 4 urur ay ahaayeen T55ka iyo 3 urur oo ah T34 oo kuwii hore ah okay marka 34 oo T34 T34 oo kuwii baasarkii Jarmalka eber ka dhigay marka waa qadiim laakiin waa qadiim adinka markaas wax cusub camal ay idin markii hore oo dhan waxay ahaayeen Afrika wax haysta male markaas adin kaliya ka haysataan anaga kaliya taangiyalkaas waxa la hal guuto iyo 2 urur oo darkii meeqa waay aad haystaan taangiga adigu 9 waa guutadu waa 9 waa 3 ururkii waa 31 xabo ururkii 31 taangi marka la isku daro waa 100 iyo waxa weeye maaragtay kuwan oo T34 waxa waaye 4 urur oo 100 iyo saayid kuwa kalena waa sidoo kale 4 urur ay ahaayeen soo 200 iyo xoogaa taangiyad haysataan waa garto waa ismahadeen waa ismahadeen aad iyo aad hay madaafiicdana maxaad haysataan goobta amal aanu hayn da sodonka ku u dambeeyay la keenaa balaayo ah oo maxay ahaayeen noocay ahaayeen xale dhowr urur bay ahaayeen hadda ma xusuusto tiradoodii oo waxa la dhahayaa da sodon shanta boqol soo gaaray ridadiis 18 kilomitir ayuu wax ka dilay laakiin madfac fiican buu aad iyo aad meeshii lala galo meeqa qiyaastii haysataan da sodon dal xoreeya loo baxshay dal xoreeya dal xoreeya da sodon saga aha
shanta 22 da 30 ma aragtay da 30 boqol iyo laba waaye da 30 da marka waxaa watay ururkii horeeyay oo si fiican ugu dagaalamay indha qarshaha indha qarsh ayaa taangiyada madax ka ahaa maya ururka koowaad maya madaficda da 20 madaficda da 30 aad u yaqaanaa feerto ku ahaa si fiican u bareen ciidanka lugtuna imisay gaarayeen markaas adiga 30 kun ciidanka 30 kun ay ahaayeen taangiyaduna dhowr boqol 200 iyo xoogaa madaaficduna qiyaastii wallahi taas ma sheegi karo waa iga lumeen markii korkan ka diyaaradahuna 20 iyo xoogaa dhowr iyo 20 ay ahaayeen marka intaasaa kuu soo baxday ciidan intaas tiradiisu la eg yahay iyo madaaficda iyo hubka haystaan iyo noociisa Etoobiyana maxay haystaan markaas intaad og tahay wax ma aragtay waxaas u dhigmi kara waxaa ka jirtay hal guuto oo guutada tobnaad la dhahaye oo Etoobiya oo jigjiga deganayd garab cas meel garab cas la yiraahdo ayay deganayd taas waxay haysatay laba urur oo taanka ah iyo hal urur oo ciidanka halka urur waa imsa taangiga marka adigu noocaas oo kale waan maleynaa inuu ahaay waan maleynaya adigu kulli markii la isku socdo kontameeyay wateen taangi oo M60 leeyahay M60 Mareykanka Mareykankaas siiya guutadaas ugu xoog badnayd guutadana hadee waxaan adigu haddii alarm loogu dhifto 10 daqiiqo ka bacdi waa ogaa jiray meel kastoo joogo sirdoonkiina uu idin sheegay inay dhaqdhaqaaqooda la socoteen qaas mid ahaan ag dhignay ilaa iyada baa maaragtay waxaan shaki ka qabnay ka jirta aan u soo noqono marka General Galaal meeshii aad lagu xareeyay cidda rabtaad u yeerataa qorshihii dagaalkaad guda gashay qorshihii bilood ku jirtay 3 bilood ku jiray 3 bilood markay dhamaatay waxaan bilaabay wareeg inaan baalihii qaybiyo dayradan qaatay booliis leeyahay qaybahoo dhan baan maray si aad u soo aragtid amarkii la soo siinaa markii waa la soo siinaya maabka oo amarkan waa kana meeshaas weerar waxaad dhammayseen sidii dagaal waajibaadkeedii markaa 3 bilood ku dhamaatay Maxamed Siyaadaad ku noqotay qorshiyaad gacanta ka saartay soo wareejiyo yiri dagaal galay dad wad waa waday galuu ku yiri dagaalka ya muxuu ku yiri markaa qorshaha u geysay diyaar waa hal galuu yiri yaa abaanduul noqday marka abaanduul wixii horeysa يعني سيدي دور كله يجي أنا يا أسوي أسكو هرني مركزته adiga iyo يا فوين Maxamed Siyaad hay بالك كوي يد سيدي ماشي يجوا سوانتر قال شبنيار وبحشة هو واجب كوسار adiga واجب كاغا dhigay واجب waxa ciidamada ciidamada dagaalka gali wad in walba waajibkiisa si kuna control inta shaqadaas ku diray dagaalkana gali kuna control amarkan yaa siina macna xaqiiq amarkan yaa bixina dagaalka aniga soo bixina aniga ma rabo asoo inay hadlaan ma rabaan wax kaliya ma yaar cali samantar marka waa fadhiya markuu saas leeyahay waa fadhiya cali samantar iyo geelle meesha waa duurka ah la isugu tagay geellana banduulo ku magacaabay marka rabsha waxay dhacday markii ciidankii batalan frontigan waajibaadkii siideen kulli meel kasta la joogo ya ciidankii waajibaadkii baa siisay waa u geeyday qorshihii dagaalka awal waxay amarka igu siiyay qaybaha oo dhan inaan anugu diyaariyo dagaalkooda iyo qorshahooda sababtana markaan soo noqonay yiri qaybta 26 salxaana diyaarinay iska daa oo hargeysa fadhida markaas iska daa buu ay anigu cunayskaas
laakiin waan ogaa inuusan waxba diyaarinayn aniga waxaan diyaariyey dhinaca koonfurta joy goday iyo qabri daara noogu darnaa labadaas labada meelood oo waaweyn oo ciidanku fadhiyey saan ku sheegay dayuuradaan qaatay waxaa la yaab lahayd dayuuradda waxaa waday mid majeerteena markaan dhuusamareeb ka soo kacoon raba inaan qaybtii lixdamaad aado ayaan kii taliya xagga xarunta qaybta lixdanaad waa baydhabo waan la hadla waxaa ihi luuq imow markii baydhabo kuwiyaa jooga isbeertayaalkii ayaa jooga ka dhuumanaynaa khubradii ruushka marka luuq imow baan ihi kii duliyaha ahaa luuq igee baan ihi markaan dhuusamareeb ka soo kacayna muxuu sameeyey wiilkaas muxuu sameeyey wuxuu dabcay inuu aniga igu dejiyo doolow garoonka xabashida adig cid kalena kulama socoto kaliga markaan wardiye xataa ma wadatid may watee doolow markaan korta oo aan maaragtay awal warqadahan fiirfiirinaya ma ogtahay ay saas soo degtaan saas u dhigto dhulka markaasaan arkay saddexdii webi meeshii isaga imaanayeen waada qootay qooda markiiba waryaa meeshaan waa xaggeed meeshaan waa dolow baa waryaa kici waa igu qosla uu yiri bastooladaa la baxay yaan dhafoorka ka saaray isagii markaas tolay haddaan ku geyna ralliga tali tuugyahow tuugna wuxuu dabcan aniga iyo warqadahaas aan wadno inuu xabashada gacanta naga geliyo oo halkaa idinku dejiyey aniguna waa gartay dhulkaan ilaa dhul yaqaanaan ahaaye isagoo qarqarayaan kusoo dejiyey igu soo dejiyey marka baxaan iri erod halka markaan luuq ka degnay aan iri bax soco erod aad ma aada ribood gareen lama xirin tuugyood maxaa samaysay marka ya waad soo dhammayday qorshihii baad siiday waktiga xabadda ugu horeyda la ridayo ma qorshaydeen iyo maalinta 23 Julaay 77 saacadduna tahay maqribkii bay ka dhaqaaqeen maqribka qolo walba dhaqaaqaysaa sideed u qorshaysay marka sideed u qorshaysay in loo galo dagaalka marka kuwii qaybta 21 waxay aaday abradaari toos u aaday macalitaangiyadoodii madaafiicdoodii iyo ciidankii lugta god tii lixdamaadna oo ku xoojinayna waxay aaday goday tan bay aaday qabri daar waxa wata mid cabdi caluuq la dhihi jiray oo diraha tan godayna waxa aaday in aftooji abukar aftooji nan fiican oo ahaa shidant marka goday markii waxaa qashqashay dayuuradii xabashida marka maalintaas wuu ka joogsaday 23 qabri daare maqribkii waxaan waagu markuu baryayay ayuu dul tegay cabdi caluuq oo soo aroorna uu yiri oo ila soo hadlay waa soo aroornay waa taaganahay haddaan maaragtay degaynaa markaasuu afweynana waa ila ag fadhiya iyo labadii kale maxamed siyaad markaasuu yiri amar sii hadeer dhaqaaqadhe gala markaasaa waraabti hadeer ma geli karaan see waayahay soo inay dhulka arkaan oo waxaa saamiyaan maaha soo inay baabuurta taangiyada iyo rashidaal ku shubaan maaha xalay oo dhan 400-500 kilomitir ay socdeen ukaadi madaxweyne faaruq markaa maya socda hariya waxaa maqlaysaa socda dhe kii baan la hadlaa hariya soco
markaa saan ku soconaa haddeeraa baan imide see waay adiga waana oqon fiican u dhalaa ninkaa cabdicalow waa gartay oo in lagu ag taagan yahay taliya seen yeela waad ogtahay inay sidaan sheegaysaa in almirda wuxuu yidhi intaan madaafiicda meel ka rakibanayo aan ka rakibanayo aan dhahay halkaas dega ilaalana darsanayo u arkayo waa indho qarshahan intaas keliya ay ogolow buu yidhi aniga keliyaha maqlaha ma ogta ayaga ma maqlayaan markaa ha soco gal waa yahay samee soco sir wuxuu ku yidhi waa galaha u yidhi wuxuu keenaa aragne adigu marka 23kii uu rakibtay 23kii June 77 July maxaad u doorteen 23 wiilkayga cunadka hadashay cid ogeed lama arko marka colkana waxaa la yidhahdaa feer aarra la dhihi jiray ciidanka halkaas galay ugu horreeyey ciidankaas oo galay qabri daare feer aarra la dhihi jiray feer aarle feer aarle waxaa faras aan lahayn oo baxdo aan jeclayn aad u jeclaa marka inaan la garanaad ugu tala gashay kelimadda sirta maxay ahayd marka afgaradkiina afgaradka iyaga waxaa wareer baa dhacayoo maaragtay waxaan lahayn bahal oo kood oo jifraari ah sifar oo maaragtay qarsoon ayaan lahayn oo caraweela la dhihi jiray caraweelo ruushkaa noo soo sameeyey marka waa muusig miya ya baaqa qarsoon baaq qarsoon ma eraya ma magaca maya waa hadalka dhan waxaad rabtaad qoraysaa waxaa rabtaad ku qoraysaa oo markiiba uu qarinayaa uu daboolaya system ay idin siiyeen caraweelo la yidhaahdo caraweelo ma bixiseen ya ruushka idin sameeyey ruushkaa noo sameeyey laakiin ruushkii sooma aanan dirin asagii caraweelo ma haysto waana maqlaano maxaa sameydeen marka waxaa horta bahalka waxa weeye waqti dinaamikada ah sideedaba wax weyn lama qari karo waqtiga mar haddii dinaamikada laga saas markii dhabta la gaaro wax badan lama qarin karo lama qari karo waxaa la qariyaa inta lagu jiro organizationka waxyaalahaada la qariyaa laakiin haddii hawshii la galo tala fara ka baxday maxaa samaysateen marka toosan ula hadlay gal iyo waxaasay ahayd marka fooneeyaadna ku xiriireyseen ya baalkan raadiyo weyna ii dhigan raadiyahaad ku xiriireyseen mawjadahaasa iskala hadleyseen mawjadaha raadiyaha iskala hadleyseen bosibnaasada la dhahay garanaysaa raadiyo weyn waxa weeye oo intercontinentala oo ruushku idin siiyey oo ruushka marka midna meesheedu ku rakiban yahay oo midna qaybaha wata okay halkaas ku soo dhacayaan wax oo dhan halkaas ku soo dhacaya sidii dagaalkii aa loo galay lagu galay 23kii marka maxaa dhacay markii uu yimid hadda dhagax qabri daharana saasay u gashay goday dayuuradii qashqashay waa inaan dayuurado korgeynaa dib bay u dhacda iyadu berri diyaaradihiinii dagaal waa qaadi waayeen markii horeba ma aanaan dirin ma aanan ogeyn laakiin cilada dambuun ogaa doono ma aanan ogeyn maxay ciladaad ogaatay aan ku soo dhameeye markaasuu yiri aawa dhagax buur iyana maxamed siyaadaa ku leh halkaanaad ka furtay dagaalkii goday iyo jijige dhagax buur qaybta 21aad waxaa samaynaysaan iri suurada miyaadan samayn ma samaynaa iri oo maxaa jira anigu samayn kuma dhihin waa tiri laakiin samantara ay yiri salxaana samaynaya markaasuu waa dhugtay samantar maalintaas dhulku inuu la go-o uu jeclaa isla joogtaan markaas waad la farfardana markaasuu war maxaa dhacay waxaa jeclaysaa markaasuu salxaan war ma salxaan baa wax samaynaya uu yiri annaga maxaa noo aaleysa salxaan waxuu samaynaya hadda waxuu sameeyey uu yiri waxba
haddeeraan dirayna haddeeraan galaal u dirayna galaal godkaa ma qodmo daca nacas dhalo ahaa marka taasoo meeshaas see u xallideen marka taas ya sidee loo xalliyey anaa tegay markii dambe aduu ku yidhi tag waa tagtay haye markaas qorshe hore laa galnay see u qorshaysaan marka ya waxaan soo diray urur waxaan ka keenay taangi iyo urur ciidanka lugta ah qabri daare iyo urur madaaficida goobta indha qarshahan saddexdaas xaggan ka keenay labana meel halka qaybtan ka qaadonare dhagax buuraa ku dhufateen marka nimankaasaa waaye arag ahaayo haddeer markii ilaa ninkuma ogtahay isagase u diyaarsan yahay waaye aragnimo waa la rabaa ma ogta practica la rabaa nimankaas practica haddiiba qaateen saddexdaas xagga ka keenay meeshii degan waxay kala furteen bahashii dhulkii degay midkii madaaficdu maaragtay wixii buu qaatay observationkii iyo waxyaalaha dhulkii 15 daqiiqo markuu la dhacayay ay banaanka u soo baxeen naqarsha la dhacay 15 daqiiqo markuu ku riday karartii saddexaad markuu ku wado tan koowaad meeshaas ku dhifay tan labaad xagga tan saddexaad oo soo yaaceen ayuu kala yaacaya Toobiyaankii dhinac kala martaan gaalka iyo qashinka iyo balaayaa ku kaceen fuf ayaguna waa dagaalameen balaayo ahaayeen balaayo intaas xooggaas kastoo saarnay qaar baan inta wixii dhan ka fakaday jigjiga galay Toobiyaankii niman balaayo ahay niman balaayo iyaguna kuwaas horta marka ciidankiina aad ku tashanaysaan oo dhan waa 30,000 Etoobiyana waa imisa ciidankeedu markaas ciidankooda wuxuu iska ahaa ebrow ahaa ruushka wuxuu ka qoray haddaad arag muxuu ka qoray laa ilaaha illa allah ceebta iyo fadeexadda imsi gaarayeen tir ahaan dhowr boqol oo kun ay ahaayeen idinkana 30,000 la ordaysa marka wuxuu yidhi maba nimanka saraakiishoodu ciidankoodii meeli jiraanba ma oga maalintaasoo dhan wuxuu muusikay dheeraaya markii maqlaan taangiyada iyo madaaficida soomaalidana dibadday ku dhacayaan taas waa warbixintii ruush ka qoray markii dambe balaayo ku dagaalkii aad gasheen maxaa marka dhagax buura ka gasheen godayaa gasheen jigjigaad gasheen hay see waxaa la rabay markaa feeri qorshuhu laba taabo wey laba waqti laba waji kala lahaa laba waqti oo kala waqtiga koowaad waxa weeye qorshaha guudna waa mid detailsna waa u qoran yahay details marxaladda labaad waxa weeye qorshaha guud waa qoran yahay laakiin detailskii ayaa la rabaa in la qoro haddana marka jigjiga iyo maaragtay iyo dirir dhaba iyo waxaa la rabaa in detailskoodii la qoro qorshaha waxaan anigu markaan anaa awal hayay qorshaha guud oo qoray markaan tegaya waxaan u dhiibay geele waa banduule ahaa marka waxaa la rabay inay detailskii sameeyaan ma sameyn iikaadi marka adiga roolka kaalintaadii dagaalku xaggo ku ekaa adiga dagaalkii waad gelisay qorshihiina waa qaybisay xaggee la qabtay markaas marka qoladii dirdhaba kor maraysay kuwaasaa la ii dhiibay adiga waxaa la yihi maaragtay adugu halkaas dhabarjabir xoog lehay ahayd halkan waa lagaa wareejiyey marka hirgeli lahayd waxay ahayd bahal caalami ah goormo wey markaas xaggee la qabtay marka waxaa qabateen goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur waa haynaa goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur ayaad qabsateen kulli waa haynaa markaasaa maxaa la sameeyey marka waxaa la rabay in la qorsheeyo oo isku mar hadda waxaa simultaneous attacka la rabaa ma ogtahay qabri dahare waxaan dhihi lahaa jigjiga iyo dirir dhabe isku mar in la qabto in lagu dhifto dagaalka ayaa qorshuhu ahaa midka guud
detailskii baa la rabay detailska ka dhib badan waxa kasta wax sameeyo male faahfaahintii dambe wax marka aan u soo noqono si aan u fahmo markii magaalooyinkaas la qabtay oo maamul loo sameeyey adiga waxaa lagu dhiibay kor ka soo wareega leeyahay shaqo waajib cusub baa lagu saaray muxuu ahaa waajibka cusub inaan Dirdhaba kor ka soo galo marka Dirdhaba awal hadda deegaanka si fiican uma aanan garanay Dirdhaba hay deegaanku waxa weeye waadiyaal iyo buuro iyo godad iyo jini waana waqti roobna ku abaaranay marka raaca hore ciidankii markuu raaca labaad wali wuxuu joogay Loghaya waxa in la soo raro oo la keeno yaa keeni lahaa xaruntu inay ka shaqeyso detailska qorideeda iyo ciidankaas soo raridiisa labadaba male waxay ahayd Agosto 12 ay ahayd in dagaalka la galo Dirdhaba iyo Jigjiga 12 male 13 male 14 male wax kula hadlaya male 16 la gaaray August marka waxaan inaan galno waa galnay meeqa ciidana wadataa markaas adiga laba urur oo taanki ah iyo laba infantry ah luga ciidan tiradoodu waa imisa kun markaas iyo urur madaaficda goobta iyo bateri ah BM intaas wadataa xagee tagtay marka horta nimankan wadayaalku dhul banaan ay bahalka ku wadi jireen ma ay barteen hay taangiyada iyo waxaas dhul gab afar hadiiba gadoontay waa gartay marka uma u jeedo ma yaqaanaan cimilada dhulka ma yaqaanaan bahalku feere waxa waay bahalku 30 mitir wuxuu u soo dhaafa ma arko waa ka indhalaya geedana waa ku jiraan 30 mitir ka shishana wax dhaaxa kuma arko markuu 30 mitir u soo gaarana ma arkaba qib oo ku dhacayaan god gab waa rogmana bal taanka rogmaday adoo kaala الآن ماشي يالين marka dhibka ugu badan wuxuu idinka qabsaday cimiladii deegaanka inkastoo saasta waa galnay waa tagteen waa qaban waa la qabtay airportkaan tagnay Dirdhaba waa qabanay dawladihii oo Etoobiyaanka oo waxaa jiray aad horta u tababar meesha kaliya tababaran ciidanka cirka ah si daran u tababarnaa ciidanka cirka Ethiopia dawlad fiicanna waa wateen oo F5 leeyahay F5E waxaan u haysanay 4 baabuur oo shilka la yiraahdo oo ruushka geedahaas dawladaha yararka oo inay 2 soo degaan ayay wax ma aragtay wax boqaya waxtaa geedkana laga horgeeyay waa la aragtay dibadday ku dhaceen diyaaradihii bateriga BM ka ahaa warigeed ayaan arag xabashada qoryahaas aan agdhignay say u daafacaan marka hada dayar guuraysa la bada bahasha markay rudo BM ka markii lagu riday xabashadii nin fiican oo maxamed dheere la dhihi jiro oo marixaan oo waawid aad iyo aad baraaw ah sargaal fiican oo warka ka ciidanka watay markii lagu riday fush waa kala yaaceen meesha waxay soo kaxaystaan hal bambar ayay dawlad bambar ah oo Canberra la yiraahdo laba ilaahay weligood labadii mid awal mid Eritrea inta la soo fakaday oo noo kana Hargeysa oo xamar geynay
ayaan haddana kismaayo sii geynay kismaayay taallaa ku baaba'day diyaaradaha middood ya wahala bambar ah bambar marka diyaaradihii idinkana diyaaradaha waad ka liidateen marka dayuurada kaaga sheekay doonaa marka dayuuradihii yaryaraa waa iska celinay oo xabashida waxa aan wadanaahuna 4 kilomitir ka kor wax kama dili karo halkii bombara haray ayay soo dhaamiyaan 5 kilomitir imaanay diyaaradaha Etoobiyaanku bahasha bombarkaas iyo xayn ilaala ka ah oo ayada ilaalinaysa iyada ilaalinaya dhotto adoo arkay baabuurtaada mid bombar dhotto waxaad kula soo qabateen male dayuurad ku ridana male dayuurad ku imaanaysa male dhotto wara dema everin ka dhigeen wax badan markaa arkay inay saas gelayaan ciidamadii aan arkana haddana meeshaan meel taangiyadu iyo ka dagaalama karaan inayan ahayn anigu ciidankii badnaa waa soo celiyey dirna waa ka soo celisay waa ka baxay soo celiyey anigu soo meeshaan ku haray adaa ku hartay aniga iyo waxaan la haray hal urur oo ciidanka lugtaa iyo 3 taank 4 taank waxay ahayn maaqaan intii kale waa kuwa jigjiga lagu qabtay jigjigaad u dirteen banaankaas waa dhag waay meesha waa ka marka markii taasoo dhacday jigjiga sabantar iyo waxay yimaadeen xamar waa ka soo duuleen hargeysay yimaadeen adiga ciidankii o dhan marka waxaa la isugu geeyey jigjiga la weeraro waa la weeraray waa qabteen waa la soo celiyey waa la soo jebiyey waa ku noqdeen adiga on dhowr goor markii lagu celi markii dambe waa la banaankaa la dhigay Ethiopiankii waa laga adkaa dayuuradayaa kuu soo haray dayuuraduhu weligoodba dog fighting wax la yidhaahdo dagaalka hawada maba la barinba maba bilaabinba hal dayuuro ayaa 22 eber ka dhigtay hal Ethiopian hal dayuuro Ethiopian waa maxay sababtana waa maxay sababtana waa markee dog fighting kayana qor inay wadaan oo caadi ah lagu tababaro maxay qabanayaan illa ninkaasuna nin jiro waayo aad iyo aad u tababara balaayo qaba balaayo eber ka dhigay eber maalin 6 dhulka dhigay waxaan waa maxay balaayada markaan damboon ana wali la yaabanba ayaa waxaan arkay midkii taliyaha ciidanka cirka ahaan jiray Yusuf Dheeg ayaa eranayay markaas war la ku haysta ciidankan weligood dog fight kala ma baray oo maxaa jira waxaa baray sidoo waxaad siyaada diiday se ku diidaya waxaan dabcano weerar inaan keensano 2 nin oo Bakistaaniin ah oo nabara dog fighting dayuuradaha lafteedan ku baranayna hay ugu barayno warna kan hawiyo meesha soo dhawaanaya dog fighting ugu baraysa oo dog fighting asoo waxa dhibaato ugu jira ila dayuuradu waa taagan ninkan waa kulli waa duulay hadduu dheelaha maaragtay amnigiisa wuxuu marka in inqilaab lagu qabsado wax dhibaato oo ku shaqo dog fighting iyo amnigiisa maxay isugu jira waxaan la yaabo dog fight niman wuxuu ku tagay nimankaas ciidamadaas in la laayo waa gartay haddii aan ka gudubno marka oo imaam marka dagaalkii jigjiga waa la qabtay dhagaxbur waa la qabtay goday waa la qabtay dir dhawaa dhiman halkaas markay marayso see wax u dhaceen haddana aniga waa la soo waday waxa la keenay meel jigjiga la keenay meel kaara marna la yiraahdo in kaara oo la mari la ayaa la yiri bal asaguna oo aan la qaban wali hay kaara marnadii waa jirnay meel xaadow la yiraahdaan tagno waa ka gudubnay kaara marna meel waxaa la tagay
togan la yiraahdo Faafan ayay dhinaca shaka joogaan meel taagaha waxaa saaran hal madfac oo 155 millimeter ah oo taanga ah inta la yeelay bahalkaas la mari waay markaas hadda waxa waa nagu yaraatay rasaastiina waa yaraatay bahalkaanuna wuxuu tegayaa ilaa iyo dhowr iyo 20 kilomitir wax ka dilayaa annagana midka noogu kii 18 oo hadda la jiidayo hal kolba soo rido dadka kuruga dadka madaaficda ridaya oo eber ka dhigaya asaguna qanfilan ku jira oo taangi wax kasta ku rido ma jirto halkaas intii muddo markaan joognay anigu meeshii aan ku noqday xaggaas aan ku noqday dirrabe marka waxaa la yiri aniga wax fikraa male aniga marka qorshaan soo jeediyay oo hadda caqli baahan inaan haatan annagu midowgii Soviet iyo iikaadi marka intaad caqliga soo jeedin dhulkan markaa qabsateen oo haysataan ruushkii isbedel uu sameeyay si toos oo dagaalka waa ka u wareegay dhanka Ethiopia maxaa dhacay markaas ruushkii wuxuu si toos ah ula saftay Ethiopiankii maxaa ka horeeyay la safashada waxaa ka horeeyay waxaan maqalay anigu hadda halkaas jiray uu yeeray ruushku war dagaalka joojiyo weri aan idin dhexdhexaadiye aan idin dhexdhexaadiyo inta aad hadda haysataana qaata anaa ka dhaadhicinaya inay intaas ka samraan waxaa idin hartay laba ama hal gobol waxaan dheelahay magaalo maxaana idin harsan markaas labada magaalana waa idin wada hadal siinaya markaad ugu qasaartaan hal waa helaysaan dadna labadaba helay waxa waaye Dirdhabe iyo Harar markaad ugu qasaartaan hal waa helaysaan waa gartay anigu ogaadana anigu adinkan idin la jiraa anigu idinka idin la jiraa afkooyna waa diiday waa gartay markii durbaana laga garaacay maxamed Saad waa diiday muxuu u diiday bal adigu sheeg wuxuu u diiday muxuu u diiday dawladda dog fight kala baro muxuu u diiday waxaa dhici karta inuu islahaa waad guulaysatay waad helay inta kalena xoogaa ku helay soo lagama yaabo sidaas maya been baa loo sheegay waxa la American baa wax walba noo haya marka American isku haleeyay been ayaa kuwa safaaradda Washington joogta iyo kuwa xamar joogay oo anti ruush iska ahaa weligoodba ayaa durbaan la booday yiraahdo aqbal madaxweyne marka waa oo ka diiday ruushkii waa ka diiday marka asaga codsaday inuu maaragtay inuu arko sida la leeyahay hay'amaaday yiraahdeen uu tagay maxamed Siyaad xaguu tagay Mooska intii xiriirka kala goosan waaye waxaa loo diyaaray inay la hadlaan prime ministerka Kosygin la dhihi jiray iyo midkii xisbiga shuuciga ideolojiyada u xisaabsanaa Suslov la dhihi jiray oo dheer Suslov qoway aad moodo qoway iyo mid la dhihi jiray Gromyko Andrei Gromyko oo Soomaalida shaydaanka ka nabcaaday waxaana nagu diray
عبد الرحمن شعب الرباح جورجيان كيها يا كاسو نعي أصو دادقن dagaalkii sidee jabka u dhacay ya marka guul ayaad ku naaloonaysaa soo maaha haddana jabaa dhacay see jabka u dhacay damay anigu waa taa kuu sheegay qorshe waa ogaa inaanan celi karin hay 20 taanki ayaan anagu inoo hartay taangiyadii oo dhowrka boqol ahaa meeqa idin kaga hartay 20 oo kaliya hay maxaana meesha Haramaya la yiraahdo oo 30 kilomitir gudaha ku jirta maxaa jooga anaga waxaan ognahay 180 inay joogto meesha 400 joogta oo Ethioopian ku wataan ma Ruushka waa laga quus Ethiopian Ruushka dagaalkii galay waxba loo Ruushka Kuban T55 na Kuban ku u dhigay baa la yiraahdaa MT 64 T74 Ruushka wada oo toos u galay waa ninka odaga generaalka ag fadhiya generaal afar la meesha la keen oo taliyaha ciidanka lugta oo dhan wars Ruushka ya rad amiga bahala soo taliskii waa laga wareegay Ethiopia marka dhulkii qabsateen dir dhabe iyo hararna aad doonaysaan 20 taangina idin hartay ayaa la yiri markaas waxaanu macquul maahe aan hal meeshaan yeelno waxaan samaynaynaa 6 guuto gobonimo doon ah ayaan buuraha gelinaynaa inta u dhaxaysa harar ilaa iyo haadaamo gobonimo doon gelinaysaan gobonimo gelinaynaa 6 guuto 3 Soomaali iyo 3 Oromo saddexda ormada hoos aadeen saddexda Soomaalida dhinacan sukaa joogay buuraha dhan ha galeen yaan meesha waxba soo bridge dhan dhulka ha dhigeen garanaysa bundooyinka burburiyaan annaguna ciidanka inta yar dib u soo celino oo dhul cilaa qorfa ah oo aan wax istaraatiijiga oo macnaha oo leeyahay aan la arag intaan ka soo celino oo dhulkaas ka jigjiga iyo jinacsani intaan isugu soo xirno aan ma aragtay buuxintooda iyo tababarkooda iyo dhamaystirkooda iyo wixii aan galno iyo dayactirkooda wixii taangiyo saasa soo jeediseen taasoo soo jeedis adaa soo jeedisay taasoo jeedis Cumar Xaaji ayaa aniga ila saftay General Cumar Xaaji Masala وهالك نك اللي يراد صوانت رأيك صلاح العركة وبودي ودول كان قصة كسر هنا ودول كان قصة دول كهلا قب حد هذين عن هالكاس دفاع كقلنا هاي حالة قيمة يصير هذا قد دفعنا الدون كان أول قيل سنة وحس صاحبه ولا أنا ده وإحنا بالطريان ما يحل يا ما دينا دول كان ما كبحنا مركب ورق الشاي كانوا جاي الصيص وينه وقرأت بينه وأي بين جوري وهي يقول كوي ما أشيء يا بالعارض كوي أيوشة أنا ما كحرك أبودي وديدين مركو حويرة بس بدي ديدين بروح كنا عرقنا أضو قصتك هذا اللي سوى بدله صقلوا أنا isdiyaarintii ku jira inaan soo baxo ayaa meeshii aan ka imid la soo jiiray dir dhabe la wanaajilay inta la soo galay jigjiga qarka loo soo fariisto yaa waxaan maleynayay ma ogta markaasuu yiri dagaalka hala qorsheeyo dagaal maxaad qorsheynaya markaas inta la yeeraa la qorshe anigana safarana waa socda waxaan qorsheynaa mala iga tagaa 20 taangi aniga waxaan xagan qorsheynaa iyo dhowr boqol oo taangi oo ka soo horjeeda diiday waatana wax ka gura adigu kii u sheeg
qorshihii waa diiday wey markaasna laba tagtaangiya waxay leeyihiin salxaana wuxuu leeyahay aniga isaga waa qaybtiisii ma ogta anaa dagaal gelinaa huu yidhi anaa dagaalaya anigaa galaya haye ahla wasahla wahya qorshaha u sameeya war qorshaha maxaan sameeyaa maxaa qorshaha u sameeya labaatan taankiya qorshe u sameeya maya abu xarxariiq maya baaraan anti taanki camal ha loo isticmaalo bal wixii kaloo la qaban karana ha la arko haye xarxariiq fiiri markay ay ka dhiman tahay waktigii dagaalka markay ka dhiman tahay 7 beri ayaa salxaan yiri lugaa ka jabay log ma soco karo anigu markaasna galaala lagu bedelo waa aabihi wasaga tagaanayde waa diidi kii alla mar walba loo tegaya diidine war tag meesha haddii waxay ka soo baxaan aragne waa tegay waxaa jira marka waxa loo maaragtay waa harar waxaa laleeyahay hala weeraro yani xagga koonfurtana in laga weeraro xagga waqooyigana looga soo dhaadhaco koonfurta waxaa jooga waa meesha aniga lafteeda fadhiya mid cali ismaaciil la dhihi jiray oo jenaraal cali ismaaciil waa la yaqaan oo dashiishi war cali maya adeer waa gelaynaa ma gelaysaa ahla wasahla kuwii kor ka soo weerari lahaa kumbul jamee la yidhaahdo ka soo weerari lahaa harar ayaa waxaa lagu qoray nin la dhihi jiray maxamed cali abukar oo dhulbaantaa aa lagu qoray waa loo jeedaa waa meelaan suicide markaasuu inta galgasho xagga togana dafla lahaa waa laga bedelay markaasa waxaa lagu bedelay mid la dhihi jiray ina lebaxsan ka taabta mid la dhihi jiray mataqaana kaas waa garanaysa kiyaa lagu bedelay waa iska baroorta waa la bedelay yaa lagu bedelay xaash cali rooble aniga maxaa laygu bedelay salxaan carana wuxuu joogaa jigjiga alla waada beerka u dhaa abukaraa lagu bedelay caare marka ya cari abukar maa laisku bedelay maya cara jigjigu joogaa care abukar wuxuu joogaa hara wuxuu joogaa godeye yani dad qaas ahaa meeshii so intiina isku waxaa tihiin marka marka ujeedaduba waxa weeye waa maxamed siyaada hashii bedesho qatar wuxuu arkay ciidamadan oo soo noqda okay oo qatar u arka kursigiisa qatar u arka in la qaarjoog ku talagalay ciidankaas egtanaas inaan tagno so adi waxaa joogtaa harar aniga waxaan joogaa harar aftooja wuxuu joogaa waxaan dheelaa caare jigjiga caasha cali roorna wuxuu joogaa kumbulj taasaan looga tabalusaada maxaa dhacay marka ya maxaa dhacay marka alla ma oran haddee nimankii waktiga gabagabeyn waa maaragtay waa alla ma oranayo meeshii waa la isku dayay waa beebe yar haddiiba waa lasoo samatar markaan meesha tagay oo wixii fiirfiiriyaan waraqad usoo qoray taan usoo diray war meeshaan nimankaan waxba ma hayaan meesha waxba kuma hayne dadkan iyo anigu weli ma ogi in maaragtay ciidankaan ma celin karaa meeshaan aan ciidanka dib usoo celino kii markaan warqadaas diray ayaa waxaan arkay warqad telegram uu diray
cali ismaaciil oo leeyahay waxaan ku talagalay inaan meel halkaan miino ku xiro halkaasna miino ku xiro ana weeraro oon saas harar ku qabto markaasuu yidhi soco bravo xaggee nus saac intaan laga soo wareegin taarka u diray nus saac intaan laga soo wareegina waa la soo jafay waa la soo jafay waa la soo eriyay hooyadaa u soo eri maxaad markaad lahayd waa soo qabqabanaya maxaad moodeysa sababta wuxuu u qaatay inaan anigu sabataaj garanaysa aan erey ka soo baxo isdhiiba intuu soo kaxaystay horin booliisyo militaar ah ayuu wuxuu yiri meel la yidhaahdo galaash uu rabo inuu aniga markaasuu yiri cali ismaaciil adigu imaada galaash cali ismaaciilkii uu weydiiyey oo cali ismaaciil soo hormaro isagoo weydiiyey galaash oreenkan waxa ima dheeno yiri baalki waana soo muquuriyey markaas soo istaago gala raala ciidankiina markaan soo baxnay annaga labadeen annaga soo daba yaaceen soo wax ku harayba mal carada markaas gala ciidanka celi ilaahay kugu dhashay ciidanka celi oo maxaad awal noogu yartahay kelmad ima dhihin kale wuxuu islaahay cali ismaaciil wax kuu sheegi doona kan qabo oo wixii la rabay hadduu xagga ku dhiban waayaa soo baxnay adigu ciidanka meel la yidhaahdo mulli ayay isugu soo celinay halkaasaan isugu celiyey waad degeen war halkaas degaan ere bal kuwa yaa yimid geelle iyo salxaan iyo haye salxaan hadda waa soco kartaa miya marka ciidamadii markii lasoo jabay xaggee la isugu keeno ya markii magaalooyinka o dhan laga soo baxay waa laga soo meel banka mulli la yidhaahdaan ku eri ayaan isugu keeno oo meeshii uun 30 kilomitr xagga ka soo xigay meeshaasaan dejinay ku nastono dadka degan oo karanla deegaanka karanla raashinka xasan uga qaadnaba badanoo cuntadii ku karkarsadeen meesha ayagoo meesha soogaanaga ka soo tegay xamartimi xamaraaneed anoo jooga wax yar anoo markaan joogo laba habeen waxaan joogo maqaali lasoo jiiray lasoo haraati lagu soo dhiftay marka waxaa markii ii yeeray madaxweynihii meesha hadda waa loo balaaya ka dhacday see la yeelaa uu yiri anigu weli waxaa jirin weyn aan iska awalay markaasaa war ciidanka filtuu degan ninkan waa ku baaqan ciidanka filtuu degan oo cabdullaahi yuusuf oo aan xabad ridin haddeer amar sii dagaalka geli nagayl haddeer ha ku dhifteen waa cidla markaas weliba ha sii gudbeen oo awaasadan iyaan haddeer maqlayno iyo shashamane iyo hore u galeen markaas ilaa ardisaba 50 kilomitr kuu jirtaa heeraha harooyinka waaweyn meel la yidhaahdo ayaa xagga koonfurta ka soo xiga oo dhir badan dhirtaas iyo ha gareen harooyinkaas waaweyn waa soo celinaa ciidanka mangisto markaasna ruushka wuxuu ku dejiyey kala bayrka ciidamuu ku dejiyey taangaal iyo markaasuu yiri waa runtaa laakiin ma waxaad rabtaa markaas waay markaa wax fahmaya waa runtaa waa fikrad fiican laakiin ma waxaad rabtaa niman maxamed siyaada ahayn in la yiraahdo guul wade markaas waxaan israa maxamed cabdullaahi yuusuf shaka ka qabaa waana saxbayahay markay inqilaab diyaarsanaya markaas jala madaxweyne bedel ninka bedel ninkaad rabtoo kale u dhiib markaas kulligood waa isugu ka yimid ninka marka inta igu soo jeesto yiri warniyaho saaxiibka baan ku moodaya ilaa waxaa taa cadawgayga saana cadawgaaga ma hargeysa la qabsanaya jala madaxweyne war hargeysa sheegaysaa madaxda la yimaado yiri oo qoostay halkaas niyad jabay dagaalkii sidaas oo ku fashilmay jabkii ku dhacay aad iyo aad ayaa jenaraal maxamed nuur galaal u mahadsan tahay kadib
dagaaladii sokeeye iyo siday u dhaceen bal xalqa ku saabsan ayaanu geli doonaa haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaga laftooda xiiso meerana aad iyo aad u mahadsantahay